Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaartani sharafta leh kusoo dhawaada cashiradeen Ingiliishka kala socotaan kanaalkeena. Cashirka waxa uu ku saabsan yahay horrifying conversation between two boys. Wada sheekaysi waabsi ah oo u dhexeeya laba wiil. Horrifying waa waabsi. A iyo B ayaan u kala qaadnay ka faa'iidaysi wacan. A ayaa bilaabayo wuxuu leeyahay I am eager waxaan u kululahay aniga to have a conversation with you inaa wada sheekaysi kula qaato. So sidaas darteeda can you define myself naftayda ma ka difaaca kartaa from my hot questions su'aalahayga kulul. Wuxuu leeyahay I am eager waxaan u kululahay aniga to have a conversation with you inaa wada sheekaysi kula qaato. So sidaas darteeda can you define myself naftayda ma ka difaaca kartaa from my hot questions su'aalahayga kulul. B asna wuxuu leeyahay yes I can define myself naftayda waa ka difaaca karaa from your hot questions su'aalahaada kulul because maxaa yeelay I have full confidence kalsooni buuxdo ayaan ku qabaa in my ability awoodeyda that I can give you taasoo aan kugu sii karo unforgettable lessons cashiro lama ilaawaan ah such a boastful person like you sida qof faan badan sidaadoo kale. Boastful waa fan waxaa la qofka faanka badan ayaa waxaa la boastful. Marka B wuxuu leeyahay yes I can define myself naftayda waa ka difaaca karaa from your hot questions su'aalahaada kulul because maxaa yeelay I have full confidence kalsooni buuxda aan ku qabaa in my ability awoodeyda that I can give you taasoo aan kugu sii karo unforgettable lessons cashiro lama ilaawaan ah such a boastful person like you sida qof faan badan sidaadoo kale. Wuxuu leeyahay it is written on your face wejigaada ayay ku qoran tahay that you are dull student inaad tahay arday damiin ah. Dull waa damiin and you are afraid of my questions waxaana ka cabsoonaysaa su'aalahayga. B wiilka wuxuu leeyahay marka you are telling a lie been ayaa sheegaysaa. I am not afraid of your questions su'aalahaada kama cabsoonayo. I am strongly waxaan si xoogan requesting you kaaga codsanaya to release inaad soo daysid what you have waxa aad haysid without hesitation adoona ka labalabaynaynin. Wuxuu leeyahay marka if I release what I have haddii aan soo dayo waxaan hayo you will confuse waad wareeri doontaa. Confuse waa wareeritaan and you will never know weligaana ma ogaa doontid whether you are standing haddii aad ku istaagsan tahay on your head madaxaada or your heels ama lugahaada. B wuxuu leeyahay marka you are a funny guy waxaa tahay wiil shactiro badan. I think waxaan u malaynayaa you are expert inaad khabiir ku tahay at horrifying waabsiga weak students ardada liidata. Horrifying waa waabsi waay weakna waa macnaha daciif waay. I think you are expert waxaan u malaynayaa khabiir ku tahay at horrifying weak students ardada macnaha liidata daciifka ah. Cashirka intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan kanaalka soo follow garay muuqaalkana share garay soo meel fog u gaaro annagana noogu noqoto dhiirigelin. Mahadsanidin.